daawadayaal ku soo dhawaada saxafi filim channel oo idin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee jilayaasha ka tirsan shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya. daawadayaal alaba waxaan idin soo gudbinaa hadaynu nahay baada saxafi films dhacdooyinka ugu xiisaha badan iyo sheekooyinka ugu macquulsan ee aktarada iyo atriishooyinka ka tirsan shirkadda Bollywood. haddaba barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa 10 jila oo kamid ah aktarada Bollywood aktaradaasi oo sameeyay waxa loo yaqaano hair transparency surgery ama qaliinka lagu sameeyo madaxa oo tinta dib loogu abuuro. aktaradan qaliinkan waxa ay u mareen in tintoodii oo biday ama bidaar soo wajahday aawadood ay qaliin ugu sameeyaan madaxooda kadibna tintooda loo soo abuuro oo ay noqdaan aktaro aad u qurxoon. aktaradan transparency hair surgery sameeyay waxa kooka Abhijit Bhattacharya. Abhijit oo kamid ah fanaaniinta aadka sumcadda wanaagsan ku leh fanaaniinta ugu waaweyn kamid ah fanaaniinta reer India ayaa waxa uu sameeyay waxa loo yaqaan hair transparency surgery markii ay soo wajahday kadib bidaar uu ku arkay madaxiisa. jilaagan ayaa waxa uu sameeyay tin dib u abuuris oo madaxiisa ayuu tinta dib ugu abuuray markii ay soo wajahday bidaarta. hayeeshee haatan waxa uu kamid yahay fanaaniinta tintooda dib u soo abuuray. tintiisuna waxa ay u muuqataa in ay tahay mid caadi ah yeeshee laakiin waa tin dib loo soo abuuray oo kharash badan la geliyay. jilaaga labaad ee aan barnaamijka ku soo qaadanayno waa jilaaga caanka ee Akshay Khanna. Akshay Khanna waxa dhalay Vinod Khanna oo amastaana waana curadka Vinod Khan. waxa uu fanka ku jiraa mabajiliinka muddo badan kadib waxa soo wajahday tinta ama madaxa ayaa bidaar ka gashay isaga oo ugu dambeyn sameeyay transparency hair surgery dib u abuuris uu madaxiisa tintii ku soo celinayo. hayeeshee misana waxa mar saddexaad iyo mar afraadba ku adkaatay in qaliimo madaxa lagaga sameeyo. ugu dambeynna waxa ayba ku qasabtay ninkan inuu fankaba iska joojiyo bidaarta aawadeed. jilaaga saddexaad ee isna fanka ku jira ee asna madaxiisa dib ugu abuuray xagga tinta waxa kamid ah jilaaga caanka ee Govinda. Govinda oo ah aktaradii ugu caansanaa fanka kana mid ah xidigaha aadka loogu jecel yahay dhanka comedy-ga ama majaajilada ayaa waxa soo wajahay waxa loo yaqaan bidaarta kadibna waxa uu kula tacaalay in tintiisa dib loo abuuro oo kharash badan uu galiyo. hayeeshee muuqaaladiisa markaad aragtaan tintiisa xilliga ay ka yara gurmatay ama ka dhamaatay xilliga loo abuuray waxa u dhaxeeya farqi weyn isagoo aan inaba laga dareemin in tintiisa wax la yiraahdo hair transparency surgery lagu sameeyay ama bacrimin dib u abuuris tintiisa ah. daawadayaal haddaan intaasi kaga gudbo jilaaga caanka ee Govinda waxa ku xiga Aditya Pancholi. Aditya Pancholi oo kamid ah jilayaasha Bollywood-ka kuwada ugu cadcada qaybta laadirnimada ama supporting roles ka caawinta aktarada ayaa waxa madaxiisa lagu sameeyay surgery ama dib u abuur tinta oo ka yaraatay isaga oo ka cabsi qabay inuu ku biiro atoorayaasha bidaarta leh ayuu waxa uu tintiisa ku sameeyay dib u abuuris kharash badanna uu dib u galiyay. hayeeshee haatan tintiisu waxa ay u muuqataa in ay tahay tin sidii hore ku soo dhow balse waa tin kharash badan la galiyay oo lacag badan ay ku baxeen. daawadayaal jilaaga shanaad ee barnaamijka ku soo qaadanayna waa jilaaga daadayar waa Vivek Oberoi. Vivek Oberoi oo kamid ah aktaradii Bollywood-ka kuwadii ugu wanaagsanaa sanadihii 2000 wixii ka dambeeyay waxaan dhalay Suresh Oberoi oo laadarintii ugu wanaagsanaa 80-maadkii ilaa 90-maadkii ayaa waxa uu kamid yahay aktarada kharashka badan madaxooda galiyay si tintoodii dib loogu soo abuuro. hayeeshee arrintan markii uu sameeyay kadib Vivek Oberoi waxa uu tintiisii ay noqotay sidii hore la moodayay maysan noqon balse xoogaa waa uu dhaamaa galidii bidaarta kadib. daawadayaal haddaan intaasi kaga gudbo Vivek Oberoi waxa ku xiga jilaaga caanka ee aad u taqaanaan ee Sanjay Dutt oo lagu yaqaan timo aad u qurxoon yaraantiisii xilligii uu fanka ku jiray. hayeeshee ugu dambeyn markii ay da'da la soo daristay waxa madaxiisa la kulmay bidaaran inaba caadi ahaan isagoo oo filmada qaarna ku dhigayba in uu yuulka disco ama madaxba soo xirto. hayeeshee Sanjay Dutt ayaa lagu taliyay in tintiisa uu kharash galiyo oo una dib u abuuro oo uusan bakhaylin lacagta. filimada ugu dambeeyay Sanjay Dutt madaxiisa waxa ka muuqata in dib tintiisa loogu abuuray markii kharash badan la galiyay si muuqaalkiisa uu qurux badnaado. hayeeshee Sanjay Dutt wali kuma qanacsana abuurista ama badin dib u soo celinta madaxiisa lagu sameeyo isagoo ka jeclaystaba in uu madaxaba xirto marka uu filimada dambe dhigayo. daawadayaal haddaan intaas Sanjay Dutt kaga gudbo waxa ku xiga Kapil Sharma. laftiisu waxa uu sameeyay hair transparency surgery ayuu madaxiisa ku sameeyay isagoo ka cararaya bidaarta
oo waxa uu ka mid yahay baa la yidhi agtarada aadka u necab bidaarta amaba inay tinta ka haado oo waxa uu isticmaalaa badanaa koofiyad ayuu qaataa baa la yidhi oo madaxiisa ku qariyaa si aanan looba arkinba in uu bidaar leeyahay iyo in kale. ha yeeshee ugu dambeyn markii loo sameeyey tintiisa abuurista madaxa loogu sameeyey waa uu ku yara qancay inkastoo uusan weliba jeclaysan in madaxiisa iyo waxyaabo noocaas oo kale su'aalo laga weydiiyo. daawadayaal hadda intaasi Kapil Sharma kaga gudbo waxaan ku xujinaynaa jiraaga weyn ee arug cadaaga Bollywoodka ee Amitabh Bachchan oo kamid ah agtarada ugu caansan dunida aadna loo yaqaano kana mid ah agtarada kor u soo qaaday fanka amaba filimada dalkaasi Hindiya ayaa laftiisu waxa uu madaxiisa ku sameeyay waxa loo yaqaano hair transplantation surgery amaba dib u abuurista tinta madaxa marka ay qofta ka bito amaba bidaarta ay ku dhacdo. gurmiska tinta aad ayaa loola dagaalama ha yeeshee Amitabh Bachchan arrintan markii uu sameeyay kadib tintiisa waxaad moodaa in ay sideedii hore ku soo laabatay oo waxa ay u muuqataa in madaxiisu aan laga dareemin wax bidaar la yiraahdo amaba tin ka gurmatay. daawadayaal haddaan intaasi kaga gudbo Amitabh Bachchan waxa aan ku xujinaynaa jiraaga caanka ee Salman Khan waxaa lagu tilmaamaa in uu ka mid yahay agtarada ay tintooda aadka u gurmatay amaba bidaartooda la dareemi kara xilligii uusan sameynin dib u abuurista amaba hair transplantation surgery balse Salman Khan waxa uu ku dadaalaa inuu aalaaba ilaaliyo in aysan wax weerar haba yaraatee ku soo qaadin bidaarta si muuqaalkiisu isu bedelin. markaad fiirisid muuqaalka Salman Khan waxaa laga dareemi karaa ama laga dheehan karaa in tintiisu ay aad u gurmatay oo uu sameeyay waliba kharash badan galiyay. ninka ugu badan ee kharash madaxiisa galiya uu yahay Salman Khan isaga oo ka cararayay in ay mar qura laga dareemo madaxiisa in uu bidaar amaba tinta ay ka gurmatay. Salman Khan la tacaalistan uu la tacaalay amaba nafaqeyntan uu ku bilaabay tilmihiisa waxa ay socotaa ilaa muddo gaaraysa 5 sano. daawadayaal haddaan intaasi kaga gudbo tin soo celinta iyo abuuristii Salman Khan waxa aan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkan kusoo khatimayaa jilaaga caanka ee Akshay Kumar waxa uu ka mid yahay agtarada ku sameeyay hair transplantation surgery timihiisa amaba madaxiisa kadib markii uu ka dareemay in tintiisu ay gurmayso oo ay bidaari ku soo socoto. Akshay Kumar arrintan waxaa kula taliyay xaaskiisa Twinkle Khanna in uu iska ilaaliyo bidaarta waayo waxa ay tiri aad ayaan u nacbahay in madaxaaga ay bidaari ka muuqato. arrintaasi waa uu ka qaatay xaaskiisa kadibna waxa uu sameeyay dib u abuuris inuu tintiisa dib u soo ceshto isaga oo muuqaalkiisa laga dareemi karo in tintiisa xoogaa ay dhintay kadibna uu soo celiyay isaga oo sideedii hore ka dhigay. daawadayaal haddii aan barnaamijka Akshay Kumar iyo tin soo celintiisii intaasi aan ku okeeyo barnaamijka waxa aad ka daawanayseen Saxafi Film Channel oo alaaba idin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan. tin abuuristan dunida ayay ka dhacdaa qof kasta oo awooda inuu kharash la baxo tintiisa dib loogu soo celiyo ayaa loo abuuri karaa. inkastoo Soomaalidu ay bidaarta lafteedu ay ka mid tahay qoomiyadaha aadka u necab oo yiraahdaa ma goodbye iyo good morning hadba midaad doontidba waa loogu yeeri karaa qofka markuu ka hor yimaado mid ku dhacdo waxa la yiraahdaa good morning tan markuu si socdana waa goodbye. labada noocba dunida waa la daweeyaa oo agtarada qaarkood ayay soo weerartay waana ay iska daweeyeen. waxaa kaloo jira xitaa ciyaartooyda laftooda kubadda cagta ciyaara waa ay iska daweeyaan oo tintooda dib ayay u abuuraan. daawadayaal barnaamijkii aynu kaga hadlaynay tin dib u abuurista dunida caanka ka noqotay intaas ayaan kusoo ekeenaynaa. waxaa barnaamijka ka daawanaysan Saxafi Film Channel ha moogaanina inaad subscribe tirahdaan si aad barnaamijyada xiisaha leh oo ka baxaad oo la socotaan. fikirkiinana waxaad inoogu reebi kartaan qaybta comments-ka ee Saxafi Films inagoo isku duuban oo Saxafi Films waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.